Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaad ku soo dhawaataan boggayga suugaanta Soomaaliyeed online. Mowduuceena caawa waa xaalka isticmaalkii reer Yurub ee qaaradda Afrika 700 ee sano ee ugu dambeysay. Mowduucani oo aynu u kala qaadi doono laba qaybood oo kala ah. Qaybta koowaad hordhac, qaybta labaad waa imisan nooc isticmaalkii reer Yurub ee qaaradda Afrika. Qaybta koowaad hordhac. Horta waxaa isweydiin mudan waa maxay macnaha kelmadda isticmaar. Kelmaddani waxa weeye macnaheeda Soomaaligu gumaysi, waxayna tahay wadh Carbeed. Haddaba marka uu yimaado isticmaalku wuxuu sababaa laba arrimood oo kala ah takhalluf ama dib u dhac, iyadoo ay meesha ka baxdo waxa la dhaho nahda ama sare u kac ama horumar, iyo inqisaam ama kala qoqob, iyadoo ay meesha ka baxdo waxa la dhaho wixda ama midnimo. Qaybta labaad waa imisa nooc isticmaalkii reer Yurub ee qaaradda Afrika. Waxay culimada taariikhyahanku u qaybiyaan isticmaalkii reer Yurub ee qaaradda Afrika ku dhowaad ilaa 3 qaybood oo kala ah: isticmaalkii ganacsiga dadka madooba, isticmaalkii kala qaybsigii qaaradda Afrika, isticmaalkii caqliga. Qaybta koowaad isticmaalkii ganacsiga dadka madooba. Sidoo kale isticmaalkan waxaa loo yaqaanaa ama loogu yeedhaa ganacsigii 3 geesoodka ahaa. Ganacsigani wuxuu socday muddadii u dhaxaysay qarniyadii 15aad ilaa 19aad. Ganacsigani asal ahaan wuxuu ka soo bilaabmay xilli ay ganacsato reer Yurub ahi ay yimaadeen qarnigii 15aad xeebaha waqooyi galbeed ee Afrika. Xilligana Afrika waxaa haystay boqorro yaryar oo oday dhaqameeda. Kadibna ganacsatadii reer Yurub markay yimaadeen xeebaha waqooyi galbeed ee Afrika, waxa uu yimi dadkii Afrikaanka ahaa ee meesha deganaa. Kadibna ganacsatadii reer Yurub waxay ka codsadeen inay soo tusaan madaxdooda iyo boqorradooda. Kadibna markii loo geeyay boqorradii Afrikaanka ahaa, ayaa xilliga ganacsatadii reer Yurub iyo boqorradii Afrika qaar ka mida waxaa dhex maray heshiis. Heshiiskaasi oo ahaa ganacsi 3 geesooda oo u dhexeeya qaaradaha Afrika, Ameerika iyo Yurub. Haddaba waa maxay macnaha ganacsigan 3 geesoodka ahi? Macnaha ganacsigani waxa weeye ganacsatadii reer Yurub ayaa intay Yurub ka soo qaadaan ganacsi sida hubka, qalabka dumarku isku qurxiyo, qalabka beeraha iyo taashka boqorrada, ayaa waxay keeni jireen waqooyi galbeed ee Afrika. Kadibna boqorradii Afrika qaar ka mida ayay alaabtaasi ganacsi kaga beddelan jireen dad Afrikaana oo la soo qafaalay. Kadibna dadkii Afrikaanka ahaa ee la soo qafaalay ayaa inta doomo lagaga raro xeebaha galbeed waqooyi ee Afrika ayaa la geyn jiray Ameerikada dhexe si loogu beero halka oo looguna adeegsado shaqooyinka sida beeraha, dhismayaasha iyo warshadaha. Kadibna inta Ameerika laga soo qaado alaabta qaydhin ee macdanta ayaa la keeni jiray Yurub si wax looga sameeyo oo loo warshadeeyo. Kadibna alaabtii macdanta oo laga sameeyay waxyaalo kala duwan sida hub, qalabka dumarku isku qurxiyo, iyo qalabka beeraha iyo taashka boqorrada ayaa la keeni jiray Afrika si loogaga beddesho dad Afrikaana oo la soo qafaalay. Sidaasi ayayna ku baxeen labada magac ee ganacsigii dadka madooba iyo ganacsigii 3 geesoodka qaaradaha Afrika, Ameerika iyo Yurub. wuxuuna socday
isticmaalkan ganacsi muddadii u dhaxaysay qarniyadii 15aad ilaa 19aad. raadka uu reebay isticmaalkii ganacsigii dadka madooba waxaa ka mid ah raadkaasi sida dadyaraanta qaaradda Afrika, kor u qaadista dhaqaalaha iyo wax soo saarka dalalka reer Yurub, inuu markii dambe isu bedelo isticmaalkii kala qaybsigii qaaradda Afrika. qaybta labaad, isticmaalkii kala qaybsigii qaaradda Afrika. taariikhdu markay ahayd sanadkii 1884 ayaa dalka Jarmalka magaalada Berlin waxa ka dhacay shirweyne taariikhiya kaasi oo u dhaxeeyay dalalkii reer Yurub ee waday isticmaalkii ganacsigii dadka madooba, iyadoo ujeedada shirkaasi uu ahaa sidii ay dalalka reer Yurub ay isticmaalsanayeen qaaradda Afrika ay uga gaadhi lahaayeen heshiis iyo saami qaybsi ku filan kala qaybsiga qaaradda Afrika dal kastoo reer Yuruba. sidaasi haddaba heshiiskaasi nuxurka qodobada ka soo baxay ayaa waxaa ka mid ahaa sida in qaaradda Afrika loo sameeyo khariidad ama maab, in qaaradda Afrika la kala qaybsado oo ninba qayb qaato, in qaaradda Afrika dadka intii soo hadhay ee aan la rarin in la gumaysto. sidaasina iyadoo ay hirgaleen saddexdaasi qodob iyo qaar kale oo badan. sidoo kalena isticmaalkan kala qaybsiga qaaradda Afrika wuxuu socday intii u dhaxaysay qarniyadii 19aad ilaa 20aad dabayaaqadoodii. raadka uu reebay isticmaalkii kala qaybsigii qaaradda Afrika waxaa ka mid ah raadkaasi sida samaynta khariidada khaldan ee 56 dal ee qaaradda Afrika ee ay dhibaatadeedu ka mid tahay xuduudaha lagu muransan yahay, farataysiga khayraadka qaaradda Afrika ee reer Yurub, horumar la'aanta qaaradda Afrika. qaybta saddexaad, isticmaalkii caqliga. isticmaalkani wuxuu soo bilaabmay dabayaaqadii qarnigii 20aad kadib markii uu meesha ka baxay xooggii midowgii Sofiyeeti ee uu hogaaminayay Ruushku. kadibna waxa yeeshay awooddii sare ee caalamka ururkii NATO oo ay hoggaanka u hayaan Maraykan iyo reer Yurub. haddaba waxaa isweydiin mudan, waa maxay isticmaalka caqligu? haddaynu soo qaadanno tusaale, brofeysarka lagu magacaabo Yuri Bezmenov ayaa maruu sharaxayay isticmaalka caqliga ayaa wuxuu lahaa waxa weeye kharibaadda qiyamka iyo akhlaaqda ummadda iyadoo loo soo marayo dariiq aan muuqan oo qarsoon. isagoo tusaale u soo qaatay, ka waran haddii nin kaa xoog badani kula soo tiigsado feedh, maxaad samayn lahayd? miyaad iska xejin kari lahayd feedhkaasi? jawaabtu waa maya. sidaasi haddaba waxaad kaga guulaysan kari lahayd feedhka ninkaasi adigoo intaad uga banaysid feedhka kadibna isu sii dhaafiya isaga xagga uu ku socday feedhkiisu ilaa uu ka soo go'ayo derbiga ama gidaarka. sidaasi haddaba ummadda cadowgaaga ah iyadana waxa ugu qurxoon oo ugu fudud oo aad kaga guulaysan kartaa adigoo si aanay ku dareemayn oo aanay kuugu arkayn inaad cadow u tahay, bale ay moodayaan inaad saaxiib la tahay, waa inay xaggay u socdaan aad u sii riixdaa, gaar ahaan adigoo u sii qurxinaya oo dabada ka sii wada dhammaan caadooyinka iyo dhaqanka xunxun ee ay leeyihiin ilaa uu ka kharibmayo qiyamkoodii iyo akhlaaqdoodii. sidoo kale Professor Yuri Bezmenov wuxuu tusaale u soo qaatay dhinacyada laga kharibo akhlaaqda iyo qiyamka ummadda sida diinta,
waxbarashada, arrimaha bulshada, nidaamka dowladda, qaanuunka iyo sharciga. Haddaba waxay isweydiin mudan sidee arrimahaasi loo kharibi karaa. Professor Yuri Bezmenov isagoo ka hadlaya wuxuu leeyahay waa inaad dhammaan arrimahaasi shanta ah daldalooladooda iyo meelahay nabarrada ku leeyihiin aad sii dhaawacdaa oo aad sii ballaarisaa oo aad sii weynaysaa ilaa ay ka kharibmayaan arrimahaasi oo dhami. Sida diinta oo kale, meelaha ay ka daloosho ee dhaawacu kaga yaallo sii ballaari, sida inaad ka maadsato oo magacyo aad u bixiso, iyo inaad u samayso ururo caqiidooyinkoodu kala duwan yahay ilaa ay noqoto inay dadku nacaan diinta. Waxbarashada oo kale, ka fogee waxbarashada wax iyaga maskaxdooda kor u qaadi kara oo dhab ah oo muuqda, oo ugu beddel xisaabta, kimistariga, fiisigiska, afafka qalaad. Bar iyaga dagaalada iyaga dhexdooda ah. Sidoo kale bar cunto karinta iyo sida loo sameeyo jimaaca. Arrimaha bulshada oo kale, u samee ururo iyo hay-ado dhaqan rog ah oo la been abuuray, oo maamulka iyo mas-uuliyadda ka fogee shacabka, taasi oo keenaysa inay abuurmaan shakhsiyaad waddaniyiin ah oo isku xidhani, oo ugu beddel shakhsiyaad aan jirin oo iyaga siday doonaan u xukumi kara. Sidoo kale iyana waa la mid dhinaca kharibaadda arrimaha kale ee nidaamka dowladda iyo qaanuunka ama sharcigu. Raadka uu reebay isticmaalkii caqligu, xorriyad la'aanta ficil, feker iyo falsafad ee qaaradda Afrika, kala kalsooni darrida muruq, maal, maamul iyo maskax ee qaaradda Afrika, rumaynta iyo aaminaadda awoodda reer Yurub ee qaaradda Afrika.